No one knows the secret. No one knows the secret. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً إلهي مهد له كبعدي وحربانا ومهد إليا قدومية أوركا هردا مع فاطمة فارح وما تسيق روح بدن نو ديارسه فوتبول تورنمنت كان أركيسين والمقعدرة إنجنيريسو هاليجين أبهنا ما تحرمنا مقعي ماموس كيس إن حفتنا إن وحو قبض كيس وحياة بدن ونص مية إن حسوسنا وحنو بلاون مشروعان ولا حسوسنا السنة والبا إنجنيريسو كاب وحرباسي آدي إن مهد إليا أوركا هردا يدمان أنت كيف غشة حفظان مناسبة روح البدن وجزاكم الله خير. aad u mahadsantihiin telefishinka qaranka Soomaaliyeed maanta waxa uu sida u jeedaa halkaan nooga furmay ciyaaraha Amsterdam Futsal Tournament oo hirdo soo qaban qaabiso sanadkii 15aad waaye waxa ka soo qayb galay 24 kooxood maanta waxa la ciyaari doonaa wareegga koowaad maanta baliin waxa la ciyaari doonaa wareegga labaad taa waxa raacday oo la socota hirdo Achievers Award oo iyadana habeenka axad la qaban doono hadii la yiraahdo
ciyaarahan waxaan ugu magac daray injineer Iriso Allah ya arxam raaximiin oo sanadkii hore noo ahaa macnaha gastiga noo imaaday waxa sanadkan nala joogta Marwo Khadiijo wasiiradda isboortiga ee dhalinyarada Soomaaliyeed waxa nala jooga wasiirka dhalinyarada isboortiga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa jooga Abwaan Maxamed Yaxye Abwaan iyo fanaaniin Cabdi Baadil Bashiir Xuseen dad badan ayaa jooga waxaan leenahay martida Maxamed Ismaaciil oo kale noo joogo asagana ah ee legend oo maartay ciyaarahan asagana noo ah ambassador waxaan leeyahay maartay ma sha Allah ilaahay si khayr qaba noogu dhameeyo injineerkan insha Allah oo duceeyna isagana ilaahay jannadiisa ka waraabiyo waxaana la jooga ilmihiisa oo nagala qayb gali doona ciyaaraha sanadkan aad iyo aad u mahadsantiin telefishinka qaranka Soomaaliyeed maadaama dhalinyaro yaryar halkan ay ka ciyaaraysay aad aragtay aadna sheegtay in Holland ay tahay meeshii bilowday isdhaxgalka iyo waliba saddex dhalinyaro ay ciyaarayeen muku muuqatay dhalinyaro kale oo ka fiican oo aad u yaryar inay aad geysaan sanadada soo socdo oo halkan ku ciyaaray intaba waxa aan raadinayno waa Soomaaliya xulkeeda qaran kubadda cagta haddaan nahay wasaaradda haddaan nahay xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta iyo guud ahaan dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo qurbo joogta annagoo isku wada xiran sidaas keenaysa inaan raadino waxaan waa xirfad ma aha 4.5 ma aha federal waa xirfad laga helo shakhsiyaadka ilaahay hiwaayadaas gaarka u siiyay hadday tahay inay yihiin footballer hadday yihiin orodo hadday yihiin ciyaaraha qaybahooda kala duwan marka taasaan kaga faa'iideysanaynaa inaan ku horumarno isboortiga Soomaaliyeed caqabadaha jira hadday tahay dalka gudihiisa iyo hadday tahay qurbo joogta waa ogtahay isagoo talent qofkii ugu sareeyay ayaa waxa laga yaabaa qurbo joogtana aan ku soo aragnay in waqtigani suurtagal ma aha inuu qaranka u safto lagu dhihi karo suurtagal ma aha shaqo ku jira jaamacadu ku jira kanu ku jira way jiraan gudaha dadka jooga sidaas lamida marka tababar meel lagu siinaayo waalid baa damiinka ah oo dhahayo la igama wadi karo cunugii laakiin waxaan ku dadaalnaa oo ay hadda og yihiin ciyaartooy sidaas loo reebay guulihii la arkay hadda farabaxsi ah oo ayaga iyo waalidkaba ay raali ku yihiin waxa lamid ah kuwa qurbo joogta ah oo maanta aan ku faraxsanahay ayagoo waalidkii shalay baajiyay ay maanta ayagoo wada xamar keeneen oo kamid ah ciyaartooyda gudaha joogta waalidkii shalay lahaa ma la aadi karo ayaa soo raacay oo xamar la jooga hadda oo soo wada ciyaalkooda waa ku faraxsanahay waqti ay galiyeen xiriirkana kaalin uu ka qaataa sida isu soo ururinta ciyaaraha ciyaartooyda qurbaha ka timaada Australia 3 sano timid UK joogta hadeeran ka soo tagay Sweden joogan tigidhada ayaga iska soo bixiya oo imaada dalka gudihiisa dawladda guud ahaan gaar ahaan xukuumadda iyo wasaaraddan waxaan diyaarinaa recommendationkooda deegaankooda waxaana noo soo gabagaboobay in kubadda cagta garoomadii dalka sida ra'iisul wasaaraha safarkiisa aad ka arkayseen la dayactiray hadeer maalintan soo baxayayna waxaan sheegay on rabaa haddana inaan idinku bishaareeyo markabkii waday rooga cagaarna saacada iyo kuraasta VIP-da garoonka ciyaaraha Muqdisho oo aan rabno 8 Febraayo dabaaldega dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan ku feestayno haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah aad ma santahay waxaan salaamayaa dhammaan dhalinyarada timida koobka gudida dhammaan aad iyo aad baan salaamayaa koob fiican oo farxad badan maanta dhalinyarada Soomaaliyeed isku timaaday waan ku faraxsanahay intaasoo qof inay maanta isku yimaadaan aad ma wada xiiseynaya ma garanaysaa dhalinyarada koobka ciyaaraysa dhammaantood midda kale aan sheegay waxa weeyaan tobabaraha la yidhaahdo ugaaska waa tobabaro fiican oo wanaagsan weeyaan waan ku soo dhaweyn lahaa gudaha joogaada laakiin dheer yahay laakiin hadda waxaan ku soo dhaweynayaa saacaddeeda maanta naga farxiyay goolasha badanna noo dhamiyey waxaan saa ku soo dhaweynayaa
salaamaya dhammaan walaa waxaan aad baa u salaamaya laakiin goonidu waxaan aad u salaamaya ibraahim dhammaan bay idin salaamaya farxad bay idin jira insha allah is arag dambe oo sirso ha noolaato soomaaliya ha noolaato waxaan kusoo dhaweynaya saaxiibkay cabdinaasir bismillahi assalaamu calaykum magacaygu cabdinaasir waxaan ciyaarayaa wax ku socoto Belgium garan Antwerpen anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan qaaliga waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhalinyarta ka soo qayb gashay koobkan waa munaasabad munaasabad barabud loogu sameynayo injineer Riso dhammaantan ugu duceynaynaa dhalinyarta Soomaaliyeed ee meeshan ka soo qayb gashay waxaa isdhexgal ay u tahay arrinkan waxaana bogaadinaa dhalinyarta inay isdhexgal fiican sameeyaan waddankooda waxay u qabtaan insha allah meesha kaga baxay waxaan dhammaan salaan diiran u dirayaa dhammaan familkayga gobolada waddankan iyo wadamada dariska ah ama Yurub oo dhan maxamed yaxyo sidaa og tahay wiilka 15 ka tirsan waddanka Belgiumka iyo waliba waddanka Netherlands labada kooxoodna waa Soomaali waa dhalinyaro Soomaaliyeed labadaas kooxood haddii kooxda ka socota meeshan ay guulaysato qofku wuxuu dalalkan joogayaa waddanka Holland haddii laga qaadana wuxuu aadi doonaa waddanka Belgiumka waxayna fadhiya fanaaniinta Cabdi Baadil iyo waliba Bashiir Cali Xuseen oo barnaamijkan intuu socdo ila daadinayay iyo waliba Maxamed Yaxye oo garabkayga fadhiya maxamed yaxye wuxuu shan iyo 10 sano ay hirti jirtaa ciyaaraha ay wado sanadka waxaan isii diyaarinay inay noo timaado maamo qadiisin maxamed diiriye oo ah wasiirka sportska dhalinyarada dalkood إلى عاون أنت لوجدت وزيرنا مدام حبيب محمد يوسف بخوشي والله الرجال كانوا وصلوا حياتي إلى كتب بشميل والمسؤولين هذا ما تسوي عسكر مسلم sidoo kale caawa waxaa jirta abaalmarintii hibta aweeni 2019 oo isla ayadana ka dhici doonto magaalada البسوط العربية الحق العربية كيف يفرحوا سورة اليو يدا ميدانك من الكتاب يا سبحايا بعد ما جاءنا يقول للكي هذه ابن وعيارته في نفسه يا مرة وكل دونا وعيارته رسول داوود تجي باليرا كفر بغل الجنود وغلطة سبوكس كي باليرا جدا يشتي لغاية كل تبني ثلاثة وهم موصي الله على الشيء إنجيل عبد الرحمن عمر عثمان يوسف sidoo kale caawa waxaa jirta abaalmarintii hibta aweeni 2019 oo isla ayadana ka dhici doonto magaalada Amsterdam ciyaar xiisa leh ayaa socota waxaa jooga fanaaniinta kale ah Cabdi Baadil Bashiir Cali Xuseen iyo weliba Faado Mashiin oo marka ciyaarta dhammaata ay heeso qaadi doonaan nala socda ciyaarta فلدكن فلدكن الجزاء وفي من وقت الفجر هل بدنا يا جوكم؟ يا رب كان سيدا ينوش استفادون فارح على الدنيا عيادة الهجرة وحصلت كان لقوم موسى الله حديثين إنجينير عبد الرحمن عمر عثمان إنجينير يوسف وهالي سبورت أها إسلامات كاشنا دوني قبل كبنادر عبد بعد ذلك عندنا حاجة بس ما شاء الله أوروبي وعقار صنع نجيبه عيال بس صوت بس تكون عيال وكذا حماس زايدة ونش وسط كيف بقى هذا إن شاء الله وحسوا لنا متحدثات كبر إن قبله سيدي أي مزور سيدي جلنا حتى بس الحياة إن يوصل دياريان دفع الطويل وأنا كشعور مجلس. واقع الفاس الفكري بكل صوماليات وبس كعيارة يا سنة تقبل الإمام والله كان هارجينا قانون فارق يهدر إن يكير دونا مدة كعيارة أما بس كعيارة
firimbigaa sugaysa ciyaartaan bilaabin ilaa firimbiga u keenayo garsooraha ciyaarta ka mas-uula dhammaadkeeda wixii waqtilimiisa saa ku daraaya tababaraha kooxdan ay meeqan ee guulaysatay ayaa nala jooga guuleed bal ka hor maanta waa dadaasheen ilaa shalay ciyaarayseen ciyaartii maanta wallahi alxamdulilah si fiican noogu soo dhammaatay ciyaar fiican dhammaan sanadkan ciyaar fiican dadka ka tushaday ilaa shalay ilaa maanta koox naga fiican meesha garoonka ku arkeen ciyaartii semifinaalka 3-0 ku badisaan ciyaartan oo Luufan la ciyaarayseen finaalka 3 ku badisaan bal ka waran juhdiga gelisay maadaama sanad walba meel fiican ma jirto laakiin sanadkan aad koobkii dhamma qaadateen wallahi 10 sano camal dheeloona laba mar finaal laga badiyay 8 mar semi final waxaan noqonnay maanta inaan qaadno waxaan maleynaa ciyaartoydii adiga ka mid ah duqoodana ka ciyaartooy yaryar soo saarteen maanta dhalinyaro cusub oo fiican oo niveau fiican ka dheelan keenta maanta odayaashii waxaa la dhahay xaafidin waa maanta guuleed oo ah tababarihii kooxda oo badi kala taagan kooxda Luufan si fiican u dadaalay oo wax badan qabtay bal ka war natiijada ciyaarta maadaama inaga badiyay dhalinyaro walaalaha ay ka badiyeen horta naanay galan ku waxaan waranayaa guul oo fiirsanahay way naga badiyeen laakiin sabab ciyaarta ogna nin baa badiyay wala laga badiyaa maadaama wax isku daynay wada action dagaaltamay maanta finalka din laga badiyay waaska ma xuma laakiin shaqada waa tahay kabtanka kooxda Luufan si wanaagsan u ciyaaray ninka ugu fiicnaa ciyaarta aad u maasanta shalay maanta ciyaartii hirda tournamentkii si fiican bay u qaangaarnay si yaro macaan baan u ciyaarnay si yaro faraxsanna gubdumoogi baan qaadnay waa kaasta koobka maadaama idinka aad noqoteen kooxdii championka sanadkan maxaa rajaynaysaa sanadada dambe ma jeceshahay inaa ciyaaraha Soomaaliya iyo horyaalada Soomaaliya ka ciyaar insha Allah waan rabaa kulligeyna kooxda la socdo kooxda la ciyaaro kulligeyna waan rabnaa Soomaaliya u ciyaarno iyo waan taageerno maasanta kaas wuxuu ahaa kabtanka kooxda Naymeeqan ee badisay aad u maasanta daadi yareed ee koobka hirta sanadkan ku guuleystay ayaa nala jooga dareenka ay ka waranay sida aad maanta waa guuleysateen weer fiicnaad dad badan ay joogaan mooya ahayd meeqa sana jirta 17 waa 17 jir waa nin aad u ciyaara maadaama adiga kooxdaada ku guuleysatay sanadkan ciyaarahan ma rajaynaysaa sanadka dambe inaad meel fiican gaartaan soo socdaa imaadayna waa mahadsantahay waa intaad sugayseen maanta oo dhan waa kooxdii noqotay horyaalka tartanka hirda ee 2019 waxaa bixinaya abaalmarinta wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga ee dowladda khadiija maxamed diiriye hambalyo kooxda hambalyo dhammaan intii ka soo qayb gashay waxay ku dhammaatay guul waxaan idin rajaynaynaa dhammaan sanad khayr qaba inuu aad la golshaan insha Allah guul. Ik vond het heel erg leuk om een andere soort evenement te spelen. Ja, met mijn broeders. We zijn één, we zijn allemaal broeders. En het was gewoon een top evenement. En namens mijn team in Nijmegen wil ik gewoon de organisatie bedanken. Dank je wel.